haddii xaafidul qur'aan cunuga laga rabo wuxuu ku bara karaa loox waa dhif iyo naadir in la helo dugsiyo quraan oo loox lagu dhigayo iminka dabargo ayay ku dhow yihiin oo waxaa dhalan rogay samanka casriga ah tiknoolajiyadii oo Soomaaliya ka hana qaaday iyo helidda buugta iyo sabuuradaha wax lagu xardho macallimiinta arda quraanta Sheekh Daawud oo Muqdisho ku taal ayaa wali ku dhagan looxa oo waxay aaminsan yihiin inuu barakeysan yahay oo laga soo miinguuriyay looxo maxfuudka dhaqsana wax loogu fahmo looguna xifdiyo sida ugu wanaagsan quraanka sidiisa markiis hore looxul maxfuudka laga soo guuriyay looxul maxfuudka markiis hore laga soo guuriyay Jibril rasuulka Kaleey salaatu wasalaam oo ku soo dejiyay fahamino marka cunuga haddii xaafidul qur'aan cunuga laga rabo wuxuu ku bara karaa loox looxaas iyo hingaadi oo iswataan oo cunuga fahamnu ku yeelan karaa oo hor umar dhaqsi ah uu ku gaari karaa alif wax male ilaahi gaada oo ka bilaabanaysa rabbiya sir waa halka barbirowga u ah quraan ku dhigashada looxa waxaana garab socda meeris iyo dhageysi maalinle ah oo barayaashu la garab taagan yihiin ardayda waxa uu dhigtaa kooga baxali soo bilow alfaxmaale saasa u waday ilaa barta oo ana adi rabbiyasla ali soo bilow hindad ilaa saasa li wada waxa hindad martaas anka ku farbarin farbadan wal bilow saasa wa farbadan dal bilow ilaa saasa u wadjin saasa u socon saasa farbarto wadna iyo ashaq saasa nuuligeera subax walba dhowr kamid ah aayadaha Alle ayaa ardayda looxa loogu xardhaa si ay u soo xifdiyaan iyagoo si kali ah uga baxa dibna loogu meeriyo kuwa ugu ku ah waxayna khadda ka soo mayraan looxii oo la dhowray quraanka markii looxa lagu qoro ardaga wuxuu ka faa'iidaa looxiyo qoyan ayuu baranaya xaraf walba bismillaahir rahmaanir rahiim markuu qoro xarafta markuu ku bilaabo bisinka معلنك وحو يرى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أرضك مركو قرو معلنك مرلبات وحو كربا بسك إنو كسو بلاو إن لوحو يهي كي قرآن كان لغا سو غاري oo iyaga lagu tarbiyay ixtiraamkiisa ayaa ka dhigtay kuwa aad u jecel inay wax ku baraan jiilasha cusub cunuga subax salaadii uu soo galaa cashirka barxada waa cashirka loo yeerinaa markii loo yeeriyo si fiican loo meeriyo mar walba aayada loo soo yeeriyo madaxu ka soo bilaaba madax kor ka soo bilaaba oo ku soo celiha ilaa intuu ka dhameeyo oo cashirka oo ka dhameeyo saasa lagu wadaya kidib oo ka baxa markuu ka baxo kidib waa dhaqaa looxa hadana subaxdii dambadna saas leeyahay hadana la yeelay hadana ardayda ka baramoosay 30 juz ee quraanka kariimka baa loo mariyaa tafsiirka hadalka eebe axaadiista laga wariyay nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee iyadoo lagu boorinayo tukashada salaada soonka wanaag falista u baari noqoshada waalidka iyo xumaan ka reebidda ardada waxaan ugu nimaadnaa inaan guubaabino markii sida arday quraanka dhameeyay oo kale quraanka fadaa'ilkiisaan uga sheekaynaa quraanka wixii uu adduun iyo aakhira ilaahay agtiisa lagu helayaan uga sheekaynaa quraanka waxaan uga sheekaynaa ardayga hadduu macallinkiisa baari u noqdo waxaan uga sheekaynaa waalidkiisa inuu baari u noqdo intaas oo dhanba ilaahay aan ugu amray oo ilaahay nagu maxaan ku raadin ugu adoonsaday culimada diinta islaamka qaarkood ayaa aaminsan in ardayda looxa wax lagu baro ay ka faham iyo xifdin fiican yihiin kuwa buugga wax lagu baro iyadoo kutubka laga guurinayo iyaga oo xiganaya looxul maxfuudka oo markii hore alle uu ka soo rogay quraankiisa kariimka ah waxaana alle uu quraankiisa kariimka ku leeyahay inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun isagoo ka hadlaya in uu ilaalin doono xifdin doono quraanka kariimka ah محمد موسى ترسن قربانية قرنكا مقدشو